إيمانك شيء قرا لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبه قولل كيف فردوسيه جنو قورسن وليغيه قانغار هدي آتيهين قيرا لغو بيري وحييgeena qiimaha ku sugan qoorsiga ilaasha quraanka iyo sunnaha la isku larayaan la kala qaadin qaada dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura qulubtiina qiyaamaha xaqiisa dhawaan loo qulqulayaaye dad iyo qaadirkeeni wacnaa alhamdulillah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة آيات لبيه كنت لبيه لحدا بين كب العاب إن شاء الله آيات دعوه الرئيساء كوبي لحدا هدين ودي بقول نقولنا اهبطوا مصرا هي مصر باكل الدول مركا هدي الله إلى هذا مصرا وصدا منور هو يهي صدا ينار كينه بالتمويسن معناه هذا هو مقالة كم إذا مقالو ينكدقة أرى يقولون شن ميلاد بكسار على القرآن تقريبا مركا يمي كوفة وما دام الله بدا حركة اللي هي ومقالة ينك كم إذا لكن هذه فتحة كلية ولا هي ووضن كمصر ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين مركا فرق قاسات شروها بوانين الله صعود أنت كلاج ترتاوح وهي وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضرب جوح الله إلى هذا مركي سورة قراءة الله إلى لكن معنى يالبضم ويا شعربي هل كواد اسمه مركي يرى جوحه وفائدين إياه لمن كان سيد الدلجة إياه فقره أي وحرين هنا أنا يوتجينين أيقول لا سمسين يهوده waxay ka dhigayn taambuug lagu dul dhisay kale oo iyaguna ku hoos jira meeshay doonayaan ha u baxaan taambuuga faqriga iyo miskiinimadu iyo dulligu ku dul dhisay waxa kale oo jira ficilka mudaarica ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna di aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen نبينا ويدلين wax soo socda hadda ma aha dana ilaahay ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baan ku arkayna aayada ficil sheegaya wax soo socda laba arimood buu noqonayaa xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nabi dilka ahayd sawirkeedii ilaahayna soo hordhigayo oo bashico liita iyada oo lagu sheegayo waxan inaanay wali deynba gaalnimadiina way wadaan nabi dilkiina way wadaan لأن الفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد أو وحي عصبونا يكل بأي فعل كتسنيا marka wali sidii bay yakfuruuna aayadihi uga gaaloobayaan aayadahan aad u dambeeyay kuwa ka gaaloobeen walina way yaqtuluuna nabiyiin nabiyadiina wali sidii bay u dilayaan oo nabi maxamed baa u dambeeyo way suneeyeen oo way sixreen oo gacanta ula tageen ikhtiyaal bay u sameeyeen intoo dhanba waxyaabaha wax lagu dilay lagu isticmaalay ugu foosho xun ayay kula kaceen bigayr alxaq ba taala waxa isweydiin leh de waxa bay nagu fileed way yaqtuluuna nabiyiin nabi la dilo de adaa iska garhay inuu xaq daraya nabi bay noolan karna garba lagu dilay waa gardar لكن بغير الحق وحي كل شيء جيسا يجا آمن سنة إن حق درت يجا لفت جودن دي ليا آمن سنة إن حق درت وحلا سكوا فقصي ملاحظات شروي قال الله تعالى إن الذين آمنوا دتك إلهي رميب ربي والذين هادوا يكوي يهودوي والنصارى يكيد كوا دين النبي عيسى كوا بترسل كريستن كلا والصابئين يكوان يجو دين بهيسنين من آمن بالله عد إله الرميسة واليوم الآخر مالنت قيامها الرميسة مالنك الضنبئ وعمل صالحا عمل ونكسن السميسة
falahum ajruhum abaalkooday ku leeyihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa walaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan aayadda 260 ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey dadkan ilaahay uu abuuray inaanu kala yaxanayn dadkuna waa dadkiisii dalkuna waa dadkiisii diintuna waa diintiisii intaasunbuu doonayaa ilaahay inay ishelaan markaa dadkan isaga ka tala dadkan isaga addoommaha ee uu abuuray hadday xagga diinta ku sinmaan qolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani israa'iil ama qabiilada reer bani israa'iil quraanku ka warramayo si gaara looma eriyanayo carabna si gaara looma soo dhaweysanayo laakiin addoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan dee kolba sida iimaan iyo camal saalix cidal intan laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb waa iimaan iyo camalkii oo saalix bal isku wada darsamo dadkii muuminiinta hadday iimaankiisii wataan yuhuudigiina hadduu yuhuudinimadii ka baxo kii nasaarada hadduu nasraanimadii ka baxo islaamo kii saabi ahaa saabiintu ama yuhuudday ka faliidhmeen ama kiristanka ama qaaran kitaabba ku aftirsan wey intan oo dhan hadday ku soo ururaan iimaan iyo islaamnimo dee awliyada ilaahay bay ka mid yihiin awliyada ilaahayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo adduunyada ah iyo cabsi aakhira midina ma hayso alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka ilaahayna rumeeye ilaahayna ka cabsada awliyadu marka dhaqankoodu waa caynkaa wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu darajadaa gaadhsiiyey dadkana waxa uguba dhib badane raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tegey waa labadaa midu ama wixii tegaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanaad kalsooni ka haysaninoo cabsii kaa haysa ilaa dadka shahaadanaya mu'miniinta ay jannada galaan cabsidu maba baadaba saasuunbay u soconaysa marka halkaa rabbi wuxuu inoogu caddeeyey dadku ilaahay hortiisa way u siman yihiin qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caami markaa isku wada daro hadday mu'miniin muslimiin ay yihiin ilaahay rumeeyo hoggaansan aayaddu taasay faa'iidaynaysa man aamana billaahi walyowmi alaakhir arkaantii iimaanka o dhan baa soo wada gelaya alyahuud inaa hudnaa ilayka bay ka timi dhahaan culimmadu ama kii ay ku abtirsan jireen ay ka farcameen baa yahuuda la odhan jiray inaa hudnaa ilayka dee nebi muuse yidhi hadda kuu soo noqono ilaah kuu toobadkeenay beriga hore ammaan ba ahayd oo toobadkeen ba ahayd laakiin markan dambe yahuudinimadu ceebtaasay noqotay annasaara in la yidhaahdo min aladiina qaaluu inaa nasaara iyagaa magacan la baxayoo waxay isku tilmaami jireen magaca tiibu qur-aankuna u qaaday laakiin in la yidhaahdo masiixiyiin oo loo nisbeeyo ciisa almasiix ciise bnu maryama in loo nisbeeyo magacawgaa sax maaha bay leeyihin culimadu liannahum laysuu masiixiyiin dee maaha oo ciise dee cidda ku abtirsanaysa ee si saxa u rumaysani waxa weeye dadka mu'miniinta ah ee aaminsan inuu addoonkii ilaahay yahay ee aabbala-aan ilaahay maryan u hibeeyey laakiin abtirsiimadooda ah inay masiixiyiin yihiin ay ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magaca qur-aanku u bixiyaa loo daynaya annasaara waid waqti xus nebi maxamedow akhadnaa miihaaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil wa rafacnaa fowqahum dushoodana waxaanu dhignay oonu kor yeelnay aduura buurti duuru siina khuduu baanu nidhi qaata buu ilahay yidhi maa aataynaakum kitaabkan aanu idin siinay iyo diintan biquwatin dadaal ku qaada wadkuruu maa fiihi cilmiga ku suganna xusa ama ku camal fala lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa la idinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu llaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiinna uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu
lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba-a ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan aabbayaashooda ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaadii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaana inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda ay hayaan waxaasee yeeleena idinku ha yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsado ku ceebeeyey idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee lahayd oo kitaabku wuxuu koobsanayo o dhan bay ahayd ballanta waxaa ku jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur-aanka loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay uu ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaadoo dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa ee qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay quwa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacayoo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayo shaydaanka ayaa dadaal laga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahantay waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa quwa waaciduu lahu ma staطactum min quwa awooddana diyaarsada baa ilaahay idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda hagaya ee dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkoodaasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maantayna haysta adigu hubka ma samaysan kartid baa lay muslin oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa layidhi wa antum cusal idinkoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynaya markaasaa la tafsiiraya oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaado ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi dalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkii bay ka sii jeedsadeen oo kitaabkii bay ka sii jeedsadeen oo dadkii bay qaybo u qaybiyeena waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa raciyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay idhahdeen intan inama anfacdo intana inoo sahlan ablaynta iyo kala saarsaaridaana gaaladu aad bay u yaqaanaanoo dee waxayna leeyihiin diintiina a haysataan qaybahaasi waa idiin caadina ku dhaqantaan oo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha
laakiin arrimaha militariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha haynagu taataabanina annaguba taayadii waanu iska daynay idinkuna tiinna iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytu min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxigiisii u diideen ha u diidina falowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allah timid fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu lahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaanoo dee idiin qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa ee fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iina dullaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli fajacalnaahaa waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan cibro wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israa'iil dee ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeya baa le jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno oo kalaa loo bandhigay way diideen kuwa kale nasaarada la yidhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la ydhaahdo bahalkaa kalluunka la idhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalinta iyada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintan unbaa la daaya 6 cishana waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummadda qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale nooc buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii unbaaba wuxuu noqday shuraca ku soo baxaya halkanse ku imanaya ila xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way ka sii imtixaan badantay imtixaankeedu uu ka sii badan yahay saasee u eegana waxay dhahan bahalkii dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yaallaa dee wadaadadii baa loo tego le balqiil eega xun dee baadhbaadha ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa le dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhah maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabag ha u dhigaan ama godad ha u qadaan maalintii waa la qabtay bahalkii bannaanka u soo baxee lagu imtixaanayay axad iyo maalmihii ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasuu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqadda looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo aad ka akhriyaysa inay 3 qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diiday iyo qaar yidhi naga daaya meeshay doonayaan ha ka dhacaan ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaan aan anagu cunin qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arrintaasina waxay noqotay sidaa ilaahay u galay ummadii wakhtigaa joogay waxay u ahayd 10 ummadaha ka dambeeyana 10 bay u ahayd dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iideystaan oo xaaraan kuma dhiradaan oo mawcidatan lilmuttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxaa samaysay iyo dadkii sameeyey fajacalnaaha ay alqarya
أما فجعلناها فعلة أيضا فعلة واقعة دعدة وحن كرد جايبها إلى هؤلاء نكالا أي عبرة مركا لما أوصل نقطينا لما بين يديها وما خلفها ما ذو مرك قار كتب من نقطها من بين يديها ومن خلفها تدكي وقت جات شوقية قوة كدي بمن يجيبها درس بيوهاي دي تدك لها كعب سنة يدا وهذه يتشار مركا مال وحكر عن تدك وحي وحقوقها تام ونقطها سيدنا إلى هاي وقال ترى محي سمين دينا جنا إنجا إلى ودرس بيقول هاي وجه سبحانه وتعالى عقوبات كومضها كلها قال كاو حدثك إلى هاي وقد جاء سبحانه وتعالى inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam daayiradan imika jooga ma kuwii reer banu israa'iil la nasakhayba ma yabno qola markuu ilaahay nasakho saddex cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaawi marka daayir dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayir noqday uu dulaysan yahay marka diin la'aanta iyo macsiyada dulligaasa looga dhacaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان